جري waxa la dhihi jiray madxafka qaranka waxa jiray halka taariikhii hore lagu kaydiyo ayaa jireen oo waxa jiray maktabka qaranka oo library ahaana oo asna qayb kamid ah taariikhii hore lagu kaydin jiray intaba way yileen way noo sii oolaayeen halkan way yileen 19 haddaba duulaanka la inagu soo qaaday wuxuu ku socdaa idinka dhalinyaro wuxuu idinku socdaa waxaa la baabi'iyey jaamacadii ummadda oo iyada qayb ka mid ah laftigeeda kayd ballaaran ee taariikhdanadii taalay ayaa la baabi'iyey waxaa la baabi'iyey dugsiyadii dalka ku yiilay ama dugsi hoose ahaado ama dugsi sare ha ahaado ayaa la wada baabi'iyey oo kuraastoodii yaa shaah lagu karsaday xaaba laga dhigtay buugaagtii madxafka qaranka yaa la soo bililaqaystay la daadiyey gaari gacan ayaa lagu qaadanaya kiilo ayaa loo iibsaday suuqyaasha ayaa laga iibinayay si ay wax ugu duubtaan bacahan faraha badan ee shandad ahaanta loo isticmaalo ma aysan jirin xilligaasi bacba ma aysan jirin kolkaa kadib unbaa bac la keenay 19 cusbitaaladii ayaa la bililiqaystay 19 kaydka bangigii kaydka dhiigga ayaa la burburiyey maxaa waxaasoo dhan loo burburinayaa zero si aan looga soo bilaabo eber si looga soo bilaabo ayaa loo burburiyey si aadan adiga wax u ogaanin iyo jiilasha soo koraayaba inaysan waxba ogaanin wixii lagu shubo mooye inaysan ogaanin wax kale ayaa loo burburiyey taariikhdanada duulaan baa lagu soo qaaday taariikh kaliya maaha oo duulaanka laynagu soo qaaday duulaan dhaqameed duulaan dhaqaale duulaan diinta ah ayaa laynagu soo qaaday 19 wixii ka bilowday laba la isku diray ummadii oo waad maqasheen midna waa maqalnay kulligeena dagaal la oran jiray 4 bilood baa lagu bilaabay waxaa haddana samaysmay qabiil kasta dhexdiisa in la isku diro isdagaalaan isbaabiyaan waxaa la baabi'iyey la dilay haldoorkii ayaa la dilay haldooradii dadkii aqoon-yahanka ahaa ee aqoonta saaxiibka u ahaa ayaa la bilaabay in la wada qaarijiyo si kastaba ha lagu qaarijiyo mid ha loo qaarijiyo ama koox ha loo qaarijiyo oo ugu dambeysay qoladii ka qalinjibinaysay ku qalinjibinaysay aan idhaahdo hoteelkii shaamo oo baabi'intaas unbay ka mid ahayd waxaa la keenay dhaqaalihii si aad u baryootantid gacanta u hoorsatid beerihii dhulbeereedkii in la dejiyo argagixiso in la dejiyo ayaa la keenay si aan waxba loo beeran beerihii si loo naco beeranicitaanka waxaa soo bilowday 19 intaan la gaarin 80maadkii dhamaadkeedii ayuu soo bilowday qolo la yiraahdo WFP ayaa waxay bilowday marka la gaaro ninkan beeralayda ama gabadhan beeralayda dalagii kolka ay guran lahayd ayaa waxay keenaan isla dalagaas oo lacag la'aan ah ama raqiis ah ay suuqa ku daadiyaan Soomaaliyana oran cid kastana waxa raqiiska ay iibsanaysaa ninkii beeralayda ahaa ee soo tacbay ku soo daalay beertii horta niyad jab baa ku sii bilowday 19 wixii ka dambeeyayna caynkaa baa la sameeyey oo waa la duldejiyey biyo-xireenadii waa la wada burburiyey oo biyihii fatahaad baa qaarkood dhulkii beeraha lahaa fatahaad baa lagu soo daadiyey si aan loo tacban waa dhulkii kale la dejin waayo qolooyinkaas fatahaad baa loo sameeyey yaxye waxaa dhacday yacni masixid total ah ayaa dhacday waxaa iminka aan bilownay wixii ka dambeeyey 19 inaan wax soo ururino laakiinse waxaa socday xilligaasi awood la yiraahdo qori
awood la yidhaahdo bastoolad awoodahaas ayaa socday oo sababtoo ah waxaan la kulannay kol aan joogay muqdisho burburkii waa joogay aniga xaadir aan ahaa waxaan la kulannay buugaagtii af soomaaliga ku qornaa ee jugraafiga ahaa taariikhda lahaa fiiskiska lahaa chemistryga lahaa ee wax waliba lahaa in qolooyin urursanaya inay yimaadaan way iibsanayaan xaggee u waddaa waxaan u wadnaa puntland ayaan u wadnaa bay yidhaahdeen anu puntland kama soo horjeedo puntland horumarkeeda waa jecla bal adeeryaalo halkaan weli aad waxbarasho ma furmine haddaad waxbarasho bilaabaysaan diyaar qaata ilan soomaali waa soomaali unbuu inoo yahay kol damba haddana waxaan ogaanay in maamulkii puntland uu gaarin buugaagtii in meel cidla lagu leexsaday oo la waayey walaa puntland aan ka faa'iidaysan walaa cid kale aan ka faa'iidaysan anaa runtii idin sheegahay waxyaabaha dhacay ee naxdinta lah ee qaracanka leh ayay ka mid tahay aqoontii baa bilcaani loo qaatay waa la iibsaday qaar sonkor baa lagu duubtay qaar waxaa lagu duubtay hilib yacni buugaagtii jugraafiga buugaagtii taariikhda ahayd dalkii wax shaqo ah oo ka socota ma jirto waa fikirnay qol yar maqsin waay waxuu bilow bay leeyihiin hal qol iyo waxaan ku bilownay 5 kursi iyo 5 miis oo weliba oo magaciisi ah looxaan boobsiis lagu sameeyey ah iyo hal sabuurad oo weyn ayaan samaynay anaa sameeyey oo tijaabadaas sameeyey tijaabadii way guulaysatay waxay ahayd bilowgii dugsiyada private-ka ayay u noqotay muqdisho waa furnay waxaan ka furay meel la yidhaahdo cc muqdisho ay ku taallaa waxay ku taallaa baar sanca isgoyska sanca aan idhaahdo iyo baar lafweyn inta u dhaxaysa ayay ku taallaa muqdisho haddii aad garanaysa waana wada garanaysaan waan ogahay isgoyska sanca iyo meesha lafweyn la yidhaahdo ayay u dhaxaysaa waayo dhulkaa kale maxaad ugu furi weysay dagaalaa socday adeer meelna waxaa haysta hogaamiye kooxeed halkaan kale hogaamiye kooxeed kalaa haysta halkaan hogaamiye kooxeed kalaa haysta oo haddii albaab oo guri meesha uu haysto guri hadduu albaab ka jaban yahay oo hal musmaar aad doonaysid inaad ku dhifatid waa inaad lacag soo bixisaa oo kolkaa kadib musmaarkii waa xabad musmaara aad ku dhifanaysid albaabkaagay ayaad soo bixinaysaa lacag haddii musqul kaa buuxsanto waa lacag kasii weyn weeyaanba lameeri aan hagaajisanaa lameeri waxaa la yidhahdaa saqafka kore guriga ayaan hagaajinaa haddaad tiraadina waa lacag kaloo kasii fara badan marka dhulka haddii aad iskool ka furtid oo macallinkan maskiinka lacago fara badan baa ku soconaya anna bilow 5 kursi 5 miis oo cidna aan loo haynin weli ayaan wataa marka cc baan geeyey baa iskoolkii ku bilownay bixaani waxaa keennay isgoyska maxaa la yidhaha buurta sare meel la yidhahdo kalimanjaro la oran jiray ayaan keennay macallin kale aniga maaragtay ayaan isku biirsano dugsi weyn oo waxaan ka furnay anaga wuu noo weyn yahay xilligaasi 4 qol ah 4 qol 5 qol bay noo noqotay waa hal guri oo hal dugsi oo waxaan keennay 4 macallin kala keennay ninkii odaga ahaa adiga xafiiska noo fadhiyaan nile oo maamulkii wad sidii aan maaragtay cabaar ku socodsiinay misna meeshii baa dagaal kale ka dhacay dagaalo fara badan baa la soo maray kolba meel baa leedin la qaxayay yaryarkiina oo meel baa sida maaragtay meel baan idinla ordaynay maxaan u ordaynay heerkan maanta aad joogtaan iyo kasii shishay inaad gaartaan ayaan meel idinkula ordaynay kolba sababta mar madiinaan tagnaa mar waxaan tagnaa suuqa xoolaha mar waxaan tagnaa kolba meel baan tagnaa aniga keligay tegi maynin maa caruurta waa wadaaya waayo maanta heerka aad joogtaan haddiina sidaasi aan idinla qaxin berigaas maanta heerka aad joogtaan ma aydan joogi lahayn
dugsiyo fara badan baa macallimiin kale nagu dayatay oo annagana waa ku dhiirigelinay sameeya baan nidhi laba dhagaxaan keennay dugsi kaloo private ah